dhammaan habeen wanaagsan asxaabta ku xidhan janaalkayga cabdifataax ee tiyub dadka maalin u tahana maalin wanaagsan ayaan leeyahay waxaad kusoo dhawaataa muuqaal aan ugu hadli doono kulankii derbi caasimada oo maanta ka dhacay garoonka Engineer Yariso Stadium ciyaar ay dhex martay kooxaha MCC Elman. kulankan waa mid aad u xiiso badan. horyaalka Soomaaliya Premier League ayuu qayb ka ah kulankii 15aad ee laga ciyaariyo fasal ciyaareedka 2019-2020 horyaalka Soomaaliya Premier League. ciyaarta waxay mid aad u xiiso badan, waxaan u soo daawashay taageerayaal fara badan oo kala taabacsan labada dhinac ee Elman iyo MCC, balse qaybtii koowaad kulan ciyaareedka ayaa lagu kalnasay hal gool iyo eber ka horkacay naadiga jaalayaasha Elman Sports Club, waxaana gool ku dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Jamaal. sidaas ayaana ciyaarta lagu kala maray qaybtii koowaad ee kulanka, balse 15 daqiiqo ay soo qaateen. qaybtii labaad dib ayaa la iskugu soo laabtay garoonka, magadib la iskugu soo laabtay qaybtii dambe. wiilasha MCC ayaa dardar xoogan ku soo galay garoonka iyagoo rabay inay iska soo gudaan goolka madiga ah ee ku maqan goolkooda ama shabaqadu, taasoo sababtay in ay helaan goolkii barbaraha ciyaarta. waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Faisal Azaad. goolkaas waa mid rigoore ku yimid, waxaana qalad galay mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda MCC, taasoo lagu ciqaabay kooxdiisa, kadibna ciyaartii kusoo dhamaatay barbadhac hal gool iyo hal gool. sanadka hore kulanka ugu horeeyna sidaan kale ayuu ku dhamaaday hal gool iyo hal gool. kulanka labaadna 2 gool iyo 2 gool ayuu ku dhamaaday. sanadkan kulanka koowaadna hal gool iyo hal gool ayuu ku kala bixeen labadan koox ee Xood iyo MCC iyo Muqdisho City Club. haddaba ciyaarta ayaana sidaas ku soo ilaatay dhageystayaal. beri waxaa ku baarsan garoonka Engineer Yariso Stadium. ciyaaraha ayaa dhici doona maalinta beri ah garoonka Engineer Yariso Stadium, maadaama in horyaalka Soomaaliya Premier League oo aad sanadkan u xiiso badan, kooxana aad iskugu hoobeeyeen. kadib maanta markii ciyaareen kooxda MCC iyo kooxda Muqdisho City Club, beri Rajo Sports Club ama Rajo FC iyo Dekedaha ayaa wada ciyaareen. Dekedaha oo ah kooxda 3 sano soo dhaaf ku guuleysan horyaalka Soomaaliya Premier League ayaana beri la ciyaari doonta naadiga Raja ayay la baashaalay. kulankaas 9 saac bar ayuu soo gali doonaa. haddaba sidaas ugula soco natiijada halkan ayaa kala socon doonta. mahadsantiin. subscribe inagu dhiirigeli, share iyo like na waa inoo muhiim.